maalinba maalinta ka dambaysa waxay soo taraya qayladhaanta abaareed ee ka soo yeedhaysa dadka barakacayaasha ee ku sugan deegaanada hoos yimaada degmada Garadag kuwaasoo ka cabanaya biyo iyo baad la'aan. halkani waa tuulada Ceelcadde ee waqooyiga degmada Garadag ee gobolka Sanaag. waxaa ku sugan in ka badan 700 oo qoys oo barakacayaal ah oo isugu jira dad caamiya, curyaamin iyo dad caydhoobay. waxaana la soo kulmay duruufo nololeed oo aad u hooseysa. waxayna baaq u dirayaan xukuumadda Soomaaliland, hay'adaha deeq-bixiyayaasha iyo cid kasta oo wax ka qaban karta baahidooda. waxaana hadaladooda u dhignaayeen sida Ceelcadde wuxuu ku yaalaa Sanaag degmada Garadag waqooyiga galbeed ee waxa weeye degmada Garadag. marka galbeed loo raaco wax u dhow tuulaahina ma jiraan. wax bambura dhaadheer abaarihii hooyada ee jiitamadina si xoog leh uga dhacdo. xooluhu marka ay yaraadaan waxa ugu yar wax la yahay dhaqaaqil. waxa noogu haray meelaha taagtaaga dhaqaaqilina halis bay taagan yihiin. markan xoolaha ka warramo dadku abaartii hore isagoo qabay ku dhufatay mid kale to Allah ka waxana qaboojiyada ala abaaraha waxay taagan yihiin jileec ugu weynaa marka loo eego xagga cuntada, biyaha, daawada, nooc kasta oo ibn هون كيبل يبلشوا يريال تيفي waxa weeye dadkaasu labada janan waxa dadka dhibta la qaybsadeen waxay la qaybsadeen dhibto way dhaxma saddex janan dadka dhex marayaan aad iyo aad ba dadka halis ugu jira horena halkan waan uga hadalay dhag jalaq looma siin warkaanu bixinay dhag jalaq looma siin dawladana warka helin hay'adahan sidii la rabay war looga helin hay'adaha samafalka waxaanu leenahay haddaan wax laga qaban baahida taala maanta horta ilaahay uma baahida biya wax binaadan haya marka horeba waa kooban yihiin aad iyo aad bay u kooban yihiin baahida dhulka taala ee wadanka taala ee dadka reer miyiga iyo kii magaalada joogay kii qaxoontiga ku soo galay ee kaamamka ku jiray iyo kii magaalooyinka haru joogay haru deganaa iyo kii miyiga joogay wixii ku haystay waxogaagii muxuu ahaa siirka ahayd dhammaan yabadan nahay sida uu fadhiya aragtaa baydinkuba Soomaaliland arko madaxweynaha Muuse Bixi Cabdi waxaan ku codsanaynaa inuu naga caawiyo oo gaawada ku socono iyo kuwan ku hadaafno iyo waxa iyo biro nagu caawiyo aanu dhisano iyo qalo roobku ciidu naga helaa abaartuna soo galay wax hooyna marihiin waxbarashada doonaynaa inuu caawiyo oo si degdeg noo caawiyo oo noo yimaado walaalana ninkan walaalana waxaan ka keenay waxaan ku soconaa cala ayaa ku soo galay magaalada hadda sidii loo sheegay waxay ku taalaa geeska waqooyi ee degmada Garadag waxay ku taalaa halka ay isugu yimaadaan 3 gobol Sanaag iyo Saaxil iyo Saraar 3 gobol bay wadaagsiisaa Ceelcadde waxay wadaagsiisaa 3 gobol hadday wadaagsiiso ummadda ku nooli waa mid aad iyo aad u tiro badan hadday u tiro badan tahayna waxay ahayd xoolo dhaqato xoolihiina abaartii jiitamada ahayd ee hore ayaa ka saartay ugu horeysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada golaha wakiilada golaha guurtida hay'adaha caalamiga kuwa maxalliga kuwa madaxa bannaan kuwa ka hawlgala aniga waxa weeye Soomaaliland qurba joogta dhammaan cidii ay qusayso xaaladda bini'aadanimo halka waxa ka jirta xaalad adag xaalad degdeg ah dayaxbayaal aad iyo aad u faraweyn waxaanu markaa u sheegaynaa ogeysiinaynaa gaarsiinaynaa dhammaan waxa ay qusayso yani in halkan ka jirto baahi yani waxa weeye bini'aadanimo biyo la'aan iyo anfac la'aan iyo hoy la'aan iyo caafimaad xumo iyo abaar yani waxa weeye fara baan ku haysa tuulada Ceelcadde oo ka tirsan degmada Garadag gobolka Sanaag dhammaan cid ay qusayso waxaanu ka codsanaynaa cid kasta ay qusayso waxa weeye hay'aduhu waxay naga dhaafaan laamiga dadka laamiga hay'aduhu waxa weeyaan male waxa weeyaan wixii jilicsan maxaan idhaahdaa ayay dayacan inaad danaysaan madaxweynaha dalkaas
waxaanu ka xignaa dhinaca waqooyi ee badda waxaanu doonaynaa inaad noo soo gurmato gurma degdegaanu u baahan gurma degdega ayaanu u baahan gurma degdegaanu u baahanna hoy ma lihin ma sidano maxaan idhaahdayey carruurii waxaan ku idhi dayac baa ka soo hoday bii macaanaa naga go'e ee carruurtii qadhaadh baanu wax ku karinaa oo siinaa dabaday ka dhiceen farax buurbuurte telefishinka caalamiga ee Home Cable TV degmada Garadag.